madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa aqalka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ku qaabilay wafdi ay hogaaminaysay ku-xigeenka koowaad ee wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxaana ka qayb ahaa wakiilka midowga Yurub midowga Afrika iyo diblomaasiyiin kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta joogteynta xiriirka wada shaqeyneed ee koonfur galbeed iyo iyaga xaqiijinta shirka lagu madalsan yahay in la qabto bishan May sanadan aynu ku guda jirno 2021 oo ka dhacaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kaasi oo uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Bismillahir Rahmanir Rahim. maanta ay taariikhdu tahay 11 May 2021 waxaa xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo soo boqday wafdi ay kala hogaaminayeen ku-xigeenka ergeyga gaarka qaramada midoobay Mrs Nikki ku-xigeenka African Union ama AMISOM Mr Mulongo iyo madaxa EU-da Mr Balenga waxaa sidoo kale kulanka qadka Zoom-ka ka qayb galay madaxa IGAD Mr Jamal waxayna la yeesheen shir saacado qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayagoo ka wada hadlay arrimo fara badan ay ugu horeyso xiriirka ay la leeyihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo taageerada joogtada ay siiyaan madaxdan aan kor ku soo xusnay iyo hay'adaha u shaqeeyaan iyo si qaas ah waxaa diiradda loogu saaray shirkan shirka madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeelan doonaan 20ka bishan aan ku jirno magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho iyo sidii si wada jir ah shirkaas loogu qayb gali lahaa iyo ayagoo talooyin iyo bogaadin u muujiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen talooyinna weydiiyay sidii uu miro dhal lahaa shirkaas iyo waxyaabaha laga filan kara shirkaas madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa maalmahan waxa ay wadaan la kulanka xubnaha beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya si ay kala hadlaan arrimaha siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee muranka badan uu ka taagan yahay Cumar Guxurbaynta City Jowhar.